kooxihii siyaasadda looga adkaaday ee damojadiid ama xasan garguurte ama qolooyinkii kale wasiirada ahaa waxa ay wadaan hanti boob waxaa leeyahay xasan garguurte seeftii iyo qalabkii dahabka ahaa ee xilligii shariif sheekh axmed lagu wareejiyey waa uu qaatay oo si gaara ayuu ula baxay sidoo kale waxaa leeyahay xasan garguurte meel uma socoyo oo wuxuu rajo ka qabaa in la imbiij gareeyo farmaajo oo baarlamaanku ay imbiij gareeyaan ra-iisul wasaare kasto uu soo magacaabo la rido waxaa leeyahay guriga warsamayn dhol ayuu rabaa inuu dego xasan garguurte arrinta kale meesha taale waxaa weeye wasiiradii qaar ayaa waxay gadanayaan agabkii wasaaradaha sida gaadiidka ay gadanayaan wasiirkii warfaafinta maxamed cabdi xayr maareeye saaka wuxuu 18,000 oo dollar kala baxay gaarigii qooqanka ahaa ee wasaaradda warfaafinta ay lahayd ayuu iibsaday gaarigaas maalintii qarax hotel SOL ayuu muraayadaha ka jabay kadib garaash ayaa la geeyey gaarigaas qooqanka ah markii garaash la geeyey muraayadihii waa la soo geliyey waa la hagaajiyey hotel Shabeel hotel ayuu yiilay nin la yiraahdo cirbad oo guddiga doorashooyinka dadban mataqaanaa ka tirsanay oo isaaqa oo qaybta kismaayo qaabilsanay ayaa u tagay maxamed cabdi xayr maareeye wuxuu ku dhahay gaariga hadduu iib ku yahan maqlay gaariga iga iibo wasaaradda warfaafinta ay leedahay 16,000 oo dollar ayuu u gaaray wuxuu rabay cirbad inuu xaaskiisa xildhibaanada oo beesha ciise u dhalatay uu gaariga u iibiyo 16,000 isku fahmi waayeen gaarigii saakay qooqanta ahaa hotel Shabeel yiilay wasaaradda warfaafinta ay lahayd xoolo qaran ahaa hanti qaran ahaa waxaa saakay la siiyey oo laga iibiyey reebara waa 18,000 oo dollar ayuu xayr maaree siistay ayuu siistay gaarigii marka taas waxay ka macno tahay hantida qaranka la boobaya hantida qaranka la dhacaya tan kale waxa weeye ninkii gabra ahaa wuu hanjabayaa sirdoonka Itoobiya xamar way soo buuxiyeen gabra wuxuu leeyahay waxaan tusinayaa farmaajo sida Cabdullaahi Isfaan u fashiriyay iyo wuxuu leeyahay al-shabaab suuqa bakaara qabsaday ayaan intusayaa Itoobiyaanku waxay ku mashquulsan yihiin in beelaha wadada gobolka Banaadir isku diraan ee qaarna hubeeyaan waxa leeyahay maxamed cabdi xayr maareeye waa la sirayaa oo qiyaanadii ugu xumayd ayaa mataqaanaa ayaa loo maleegay qiyaanadaas oo ah in nin Itoobiyaanku ay wataan oo shaati kale wato ra'iisul wasaare u magacaabo kadibna halkaas uu khilaaf ka bilowdo in la jalaafeeyo golihiisa wasiirada lagu jalaafeeyo hadda maanta fashilka ugu weyn ee lagu sameeynayo madaxweyne farmaajo waxa weeye soo madaxweyne ah ayaa waxa la dejiyay hotelka jidkii marayay number kilometer 4 ilaa airportka wadadii ahaydna baawartii hay'adda NSA ayaa lagu gooyay taa waxa looga dan leeyahay in shacabka iyo madaxweynaha durbaba la isnacisiyo oo la iska hor keeno oo dadku ay dhahaan muxuu ahaa madaxweynaha wadada loo xiray dabcan madaxweynuhu waxa qiyaasaya xilka wuxuu la wareegaya arbacada ayuu maxamed cabdullaahi farmaajo madaxtooyada geli doonaa 22 bishan caleema saarka dhici doono waxay la tahay in dadka aad ugu sugayaan oo farmaajo qofku uu yahay iyo garashadiisa wax walba lagu qiimeyn doono maalinta uu soo magacaabo farmaajo uu u daneeyo sirdoonka Itoobiya sidii rabaan uu wax arqalad keenay bilaabana waan arkaynaa haddii uu ninka boodo sirdoonka tabanada ay dhigayaan duu yahayna waan arkaynaa laakiin aniga waxay la tahay sirdoonka farsamooyinka ay sameynayaan Itoobiyaanku
maanta waxay u baahan tahay maskax ka weyn, waxay u baahan tahay ragga muqaabaraadka ahaa ee Soomaalida ahaa ee qatarta ahaa in la isugu yeero oo laga tashto sida dabeynada loo socon lahaa Etoobiyaanka loogana gudbi lahaa ama looga tilaabsan lahaa. haddii ay saas dhicin dhibaato ayaa imaan doonta. halka meel iga qora. waxaa loo baahan yahay wax kastoo la samaynayo in lala socdo oo la ogaado oo la iska hubiyo. haddaan sidaa la samaynin oo qeyr jabaan la boodo oo cid walba la aamino waxa weeye waxaa imaan doonta dhibaato imaan doonta. Etoobiyaanku waxay ka shaqayn doonaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iska hor keenaan. Etoobiyaanku waxay ka shaqayn doonaan in mataqaanaa la iska hor keeno mataqaanaa qabiiladooda gobolka Banaadir la isku diro si shabaabka ay hub helaan ay u soo hubeeyaan oo ay awood dib ugu yeeshaan. saaka shabaabka waa ogtihiin wadada Afgooy iyo Warmaxan ayay mataqaanaa galeen abaanduul way direen tariic ciidan way direen rajadii laga qabo wada hadaladii socday ee rag badan saraakiisha al-shabaab kamid ah ayaa soo hadleen oo mahad karatay oo kamid yahay oo Muqtaar Rawo oo kamid yahay dhaheen annagu inaan dawladda la shaqeyno dawladda ku biirna ayaan diyaar u nahay ayaa la rabaa in la qiimeeyo oo arintaa la sii amba qaaday. lama rabo sidii Etoobiyaanka rabaan in wax walba loo wajaho lama rabo. ana sida ila tahay weeye waxaynu doonaynaa in dalka la badbaadiyo. waxa weeye farmaajo taageerada oo ka hela shacabka Soomaaliyeed cid ka hesho madaxweyne Soomaali soo mar oo ka hela ma jiro. waxa weeye Cabdiqaasim waad ogeydeen sidii la isugu soo baxay sidii loo jeclaa sidii shacabka ugu banaan baxeen sidii loo soo dhaweeyay laakiin Cabdiqaasim shacabka kama faa'iideysan xiligeedii taageerada shacabka ma faa'iideysan. waa niman maafiya helay qolay ku xirteen waa la fashiliyay. waxa la isweydiinayaa nacayb jacaylka faraha badan ee farmaajo loo qabo ma waxa xigi doona nacayb fara badan shacabku u qaadaan mise jacaylka iyo farxadda iyo taageerada gar taagan ay ku faa'iideysanayaan. haddii gar taagan waxa weeye dalkan waa dal la qurunsaday, dalkan waa dal la soo baabi'iyay, dalkan waa dad damiir laawayaal dal ay hore u soo iibiyeen. sirdoonka Ethiopia meel loo taagan waxaa loo baahan yahay hay'adaha sirdoonka saraakiisha sirdoonka in la howlgeliyo in fakiska la saaray cadawga kaliya Soomaalida waa Ethiopian. waxa shabaab soo hubaynaa waa Ethiopian. waxa Soomaali kala qaybinaya waa Ethiopian. waxa beelaha isku diraya waa Ethiopian. waxaa loo baahan yahay Ethiopiaanka in laga tashto sidii looga hortagi lahaa. Ethiopian yaa ka tashanaya من الدبلوماسية كتشانية من السياسية كتشانية إثيوبيانك واسكا إلين كرا إثيوبيانك يا اسكا إلين كرا إثيوبيانك واسكا إلين كرا سردونك الصومالية تاكا قطرتا هي الدولة كلها تشيها وشقي waxa loo baahan intay wadaniin noqdaan inay dalkooda u shaqeeyaan xilligan xilli adag weeye. waxa la doonayaa madaxweynuhu cusub ragga saraakiisha ah ee muqaabaraadka ah ee tababarada dibadaha ka helay ee la socdo qaabka u shaqeeyaan qolooyinkan in iyaguna ay dalka marka maanta soo jeestaan oo dalkooda aqoonta ay leeyihiin ay ku difaacaan. farbaajada waxa loo baahan yahay waxa sugaya baarlamaanka sugaya hadda gambarkaaba loogu fadhiyaa waxay rabaan ra'iisul wasaaraha oo soo magacaabo inay sidaan baarlamaanka gab haddana ra'iisul wasaaraha kale la sugo la rido dam oo la yiraahdo odaga jaaniska meesha waa ka baxay. xasan waa u jeedin meel ma socyo madaxtooyo u fadhiyaa. waxay ahayd inuu xilli hore madaxtooyada baneeyo waxay ahayd xilli hore inuu xilka wareejiyo maadaama madaxweyne la dhaariyay laakiin madaxweyne la dhaariyay oo hotel ula degan waa ceeb weeye waa dhaqan xun weeye. marka waxa weeye madaxweynaha cusub waxa sugaya baarlamaanka sugayo. anigu talada ugu celinaa maanta madaxweynaha waxa weeye markii campaign-ka lagu jiray waxba lagu wada hadlay wixii lagu wada hadlay madaxweynaha cusub ha fuliyo si uusan cadawga u faa'iideysan. haddii cadawga siduu rabo yeelna dhibka dhacay waxa weeye damajid baa meel cadow soo taagan, al-shabaab baa meel kale soo taagan oo cadow, Ethiopian baa meel soo taagan oo cadow, niman ganacsatada oo cadow meel soo taagan. waxa soo taagan ilaahay kuma samadiiday ee beel caalam kuba la yiraahdo oo ka sii xaasidsan ayaa soo taagan. waxa soo taagan haddana isbahaysiga wada socday oo la kala jibiyo oo shacabkii halka mucaarad iyo dagaal ka bilowdo dhib baa ka imaan doona. marka isbahaysiga wada socday ee guusha keenay waxaan ku talinayaa anigu bartiisa ha ahaado hana noqdo markaasi madaxweynaha cusub nin axdigii uu qaaday fuliyaha noqdo. intaas ku talinayaa dameynada ay gumaysiga dhigayaan cadawga Etoobiyaanku ay dhigayaan waxa weeye halaga tallaabsado. saraakiisha sirdoonka Soomaaliya hal isugu yeero si degdeg ah hala sameeyo qariirado cusub iyo habka loo howlgalayo. saraakiisha ciidanka militariga degdeg ha loogu yeero hala sameeyo farsamooyinka ugu cajiibsan ee ciidanka militariga lagu howlgelin karo hala sameeyo. waxa aynu qabanayna
tilaabada ugu horeysa ahaatay in laga shaqeeyo amniga haddaan amniga laga shaqeynin shabaab way soo qabsanayaan gobolka banaadir shabeellooyinku way soo qabsanayaan suuqa bakaaraha xabadda ka soo dhacaysaa isagana madaxtooyuu ku aruurayaa waana fashilkii ay cadowga Soomaaliyeed rabeen waxa la yiri qofka aan waxa ma taqaanaa waxa hal qofka waxa fog aan arag waxa ka sokeeyna ma arko waxa loo baahan yahay indhaha gorgorka inaynu maanta yeelano qofka aan aragti fog lahayna waa caruur qofka caruurtaana uma baahan in waqti badan lagu lumiyo garaalaawaha anigu waxaan la hadlayaa dadka garaad kale waxaan leeyahay maanta jaanis baynu haysanaa dawlad baynu haysanaa waxaa loo baahan yahay indhaha gorgorka inaan yeelno waxaa loo baahan yahay waxa ay wadaan Etoobiyaanka in aanu ka sii feejignaano haddaan laga feejignaan shabaab uu soo laabanayaa farmaajana waa la fashilayaa rajadii ummadda Soomaaliyeed god dheer baa lagu ridayaa taana waxaa weeye jaaniskan aan maanta helnay dib noo soo mari maayo waa ninkaynu u bannaan baxnay waa ninkaynu 4 sanadood ayaan soo waday Allah farmaajo waxaa weeye waxa ay u mana sheeg karo oo Allahaas ila soo waday ninka leeyahay Amiin Caamir Maxamed waxaa jir rag kale ayaa ku soo biiray oo Allah marka dib u soo biiray oo ayaan loo kamid yahay waa Cabdimaalig Coddoon uu kamid yahay kaliya waxa Allahaas farmaajo maanta Soomaali weyn farmaajo la isku baray ma taqaana igu mana sheeg karo oo maanta ila sheeg karo nin leeyahay Caliilo Wardheere oo ragga campaign-ka oday ku jiray bariga ra'iisul wasaaraha ahaa oo ahaa nin fiican oo campaigner oo gudaha shaqo fiican ka wada runta Caliilo Wardheere shaqo fiican ayuu gudaha ka waday odaga uu muddo mowqif u lahaa ayuu garab taagnaa Amiin Caamir Maxamedna runtii muddo odaga la shaqeynayay ma taqaana aniguna intii aan soo qabtay Soomaalina waa ogta laakiin intaan qabanayo ma ahaynin inaan farmaajo kali jeclay farmaajo waxaan ka rabaa oo inuu dalkayga bedelo dawladnimo dalkayga uu ku soo dabaalo inuu cadowga naga qabto in aynu dadku cadaalad falno dadka kale ee Soomaalidana waxaan leeyahay inaad Facebook ku qabsataan oo daarood iyo hawiye aad ma taqaan soo fiicishaan qaarkiin waxay qayb tahay waxa Etoobiyaanka rabaan wuxuu cadowga ummadda Soomaaliyeed rabay qayb ka tahay in aad qabiil isu qabsataan dadka farmaajo ku reerka waxaan leeyahay ninkaani waa madaxweyne Soomaaliyeed maanta garaadkiina ka sareeyo inaad qabiil ugu hiilistaan garaadkiina ka sareeyo inaad ninkan ku soo hadal qaadaan qabiil haddii kale waxaad noqonaysiin kubi rabay dalka inuu burburo kubi rabay ninka inuu fashiliyaan waxa uu ninka madaxweyne way cidil rabto way dhalin kartaa xalay gabar u dhalay salaad gabar Ilaahay u naxariistay adeerkay ayaa dhalishay farmaajo waa gabar aabaheed ayadoo yar lagu hordiray xaq ay u leedahay inay dhalisho maxamed siyaad barra ku hordiray xaq ay u leedahay inay dhalisho farmaajo ay isku reer yihiin xaq ay u leedahay inay dhalisho waa emotional aabaheed lagu hordiray waxay ka sheegi kartaa gabadha waxay mudan tahay in loo aqli celiyo in madaxa loo salaaxo in loo tago in mataqaana laga raali geliyo in mataqaana lala doodo ay mudan in la caayo ma mudna in qabiil mataqaana loo wajahana gabadha ma mudna anu saasan ku talinayaa waxaan leeyahay ka daaya dadka ku reerka farmaajo ee dhahaya reer hebel soo laabtay waxa soo laaban ninkan Soomaaliyeed way sida ha loo dhaafo dadka xamar ka banaan baxay reerkiisa ma aha kuwa ka banaan baxay ceel gabar reerkiisa ma aha kuwa ka banaan baxay boosan reerkiisa ma aha waxa way dad Soomaaliyeed way ninkan madaxweyne Soomaaliyeed way arinta sida ha lagu dhaafan qaba maanta arintaas saas lagu dhaafo aynu ma taqaanaa ka dayna dhibaatada dadka aan ku hayno وايا كومنتيدنا أخرناي كومنتيد وآخري جال جبيرة أما جلسات جبيرة
waxa lagu dilay baadil iyo dulmiya lagu dilay qof kasta Soomaaliyeena uu og yahay military ayaa dilay military oo kamid ah ayaa dilay marka gabadhu inay xanuunsato aniga hadii aabahay lagu dilo inaan xanuunsado oo dadkii dilay aan xasuusto xaqa u leeyahay laakiin dadkii dilay military ahaayeen ama nin military ah madax ahaa marka qabiil ma ahayn qabiilkan waxa weeye waxay rabaan weeye shisheeyaha waxay rabaan weeye qabiilka inaynu qabiil isu haysano wiligeyn oo qabiil isku ficlino waayahay comment kale akhriyay ra'iisul wasaaraha waxa weeye maxamed cabdullaahi farmaajo waxaynu ku qiimeynaa waxa weeye balantu gal haddii aniga axdi ila galo oo ira daahir ila shaqee haddaan madaxweyne noqdo waxaasa tahay waa axdi uu galay weeye waa balan uu galay maxamed cabdullaahi farmaajo codka banaanka kama helin dad baa u oleeyay maxamed cabdullaahi farmaajo shacabka isma aqoonin dad baa isbaray marka waxa la doonayaa balanti uu qaaday inuu fuliyo waxay ka taas ka marqaati tahay qofka wanaagsan hadduu hor ilaahay axdi galo oo laba qofood ay balan wada gasho balantaas wuu fuliyaa tan ku saabsan qabiilka wax ay soo kordhinayso oon xumaan ahayn ma jirto wax ay soo kordhinayso dadkii Soomaaliya hal qoys ayaa cadaawad maalin kasta laga dhex beerayaa oo Itoobiyaanka iyo cadawgeena way rabaan inay isu qabsano reer way rabaan waxa weeye tan ra'iisul wasaaraha ku saabsan anigu xaqiiqo waxaan ka leeyahay fad ama fadin waa lagu fadsiin ra'iisul wasaaraha balanti uu qaaday madaxweynaha waa fulnaya laakiin anigu waxaan qabaa yaan madaxweynaha markiiba lagu bilaabin dhibaateyn yaan cadawga loo soo raacin madaxweynaha aynu jaanis siino aynu sugno aynu aragno ra'iisul wasaaraha magacaabo ra'iisul wasaaraha uu magacaabo aynu aragno golaha wasiiradu soo magacaabaan 100 maalmood aan siino wax qabadka 100 maalmood hala sugo aan u diyaar garowna annaga ciidankeena san lacag u aruurin lahayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliiska ciidanka asluubta ciidanka nabad sugidda mushaarkooda san ugu aruur lahayn oo gacan shisheeye looga maarmi lahaa aynu u sii howlgalno farmaajana aynu ku mataqaanaa ku fiirino ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabo iyo golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha soo magacaabo iyo wuxuu qabta 100 maalmood soo socoto saxaafadana waxa leeyahay odaga inta ha loo sugo jaaniska ha la sameeyo waxa idin ballan qaadaya haddii say wax ku socdaan ay sax noqoto waxaan si degdeg u dhisaynaa guddiga saxaafadda oo ah guddi dawladda ama wasaaradda warfaafinta dawladda iyo suxufiyiin madax bannaan ay ku midaysan oo gudoomiye ku-xigeen iyo xogeeye guud leh oo u gogol xaari doono ama loo mari doono wax kastoo yimaado tusaale nin wariye ama warbaahin ayaa qalad galayso markii qalad gasho lama xirayo wariyahaas looma dhawaa karo gacan lama taabo karo intaynu xeerka ka meel marinayno golaha sare aynu ka meel marinayno ama golaha suxufiyiinta ay ka sameynayna qaranka waxa weeye guddigaas ayaa cabasho wixii jirto loo sheegayaa guddigaas ayaa hawsha qaabilsanaa doono marka arrimahaas oo dhan isku dubaridnaan diyaar u nahay si saxaafadda madax bannaan iyo dawladda cusub ay u kala nabad gasho sidoo kale waxaynu diyaar u nahay inaynu dhisno hay'adin amniga qaabilsanee dalka inaynu dhisno meel kasta ah ayaan diyaarnaa waxba hawl badan aan wadnaa laakiin madaxweynaha jaanis ha la siiyo ka daaya qabiilka ka daaya madaxweynaha inaa qabiil gaar ka dhigtaan madaxweynaha ka daaya waa waxaynu soo marnay waa waxaanu naqaano in maanta la yidhaha farmaajo reerkaas waaye dadna ay reernimo ku difaacaan waa dhibkaynu ka soo marnaan ognahay waxa xigi doonaan ognahay waxay rabaan walaalayaalow Itoobiyaanka sirdoonkooda waxay dacaayada fidaan lacag ku bixinayaan ka daaya dadka magaca Soomaali wata Itoobiyaanka ay lacag soo siiyeen ee Facebook iyo social media ku wadan waxa la ilaahayna ka baqa Soomaali baa Soomaali ku tahay dalkaaga lagu nabadiyaa Soomaali ku tahay aynu farmaajo sugno ra'iisul wasaarihiisa markaas aan karnaa farmaajo meesha wax u wado hadduu farmaajo meesha aynu tubti toosdeed ee aan ka rabno inuu hogaaminayna waa okay hadduu nagu hogaaminayna dan baa loo soo wada hal doonaa aanu sugno farmaajo yaan laga badbadin aan sugno marka sidaas ay leeyahay nabaadiino qofkii ahad qaado waa inuu furiyaa
قفك أحدي قاطو أحدي ولا قال قفك عيسى ميوا يعني سامك وسي آمن ما بلبا وحاول هذا أنا أحد كل قاله أحد كان كل قاله هذا يفلويس صاب عنك وسي آمن ماشي ما بتعلبه سين مصير أمي تكون آمنة أحد الشخصية ده فلويسه من أمي ده فلويس وأنا حديث وأنا آيات قرآن وبالله التوفيق